dee kuwii dushooda ku xaraashtay hantidii qaran ee daaraha saraha waaweyn ee ilaa airportka agtiisa ilaa bakaaraha ilaa meel walba iyo gobol wadamada in walba ka buuxiyay kuwa haddaad markale ugu celinaysaan waddankana inay iibiyaan doonaysaanna dee shacbigu taa raalli kama aha. alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam. ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogto waan salaamay. maanta afar kalmadood degdeg ayaa waxaan u dirayaa baarlamaanka xamar jooga ee gobolada laga soo doortay iyo xamar gudaheedaba. waxaan leeyahay saddex qodob baan ayaan xasuusinayaa. horta baarlamaanka xamar joogow ilaahay ha idin waafajiyo dariiqa toosan iyo tubta toosan ummadda iyo dalka iyo dadka waddan iyo diintaba Allah idin waafajiyo. waxaan idin xasuusinayaa dhaartaad dhaarateen ee kitaabka quraanka gacanta saarteen ilaahay kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala ee nabi maxamed ku soo dejiyay magaciisa ku dhaarateen. waxaad u dhaarateen ummadda Soomaaliyeed inaad wixii wanaageeda ka talinaysaan, dalka Soomaaliyeed inaad wanaagiisa ka talinaysaan, diinta maarta ummadda islaamka iyo shacbiyanaha inaad ummadda u tartaan. taas ayaa waxaan idin leeyahay dhaartaasi horta idinka number 1 waxaan idinka digayaa dhaartaasi haddii ay khilaafto waxaad ku dhaarateen ileen danta ummadda tiraahdeen iyo danta dalka iyo diinta iyo dadka intaba waa tiraahdeen. intii haddaad markaa khilaaftaan oo qabiilanimo ama lacag wax ku doorataan taasi markaa waxaad khilaafteen dhaartii aad dhaarateen horta ogaada. dhaartuna mid adiga ku ekaanaysa maahine carruurtaada dambarsan oo xaasaskaaga dambarsan oo tafiirtaada dambe dambarsan doontaa iska dhaaf adiga. waxa weeyaan taasi idinka digaya waxaan leeyahay dhaartaa iska ilaaliya. haddii aad qalbigana wax kale ku wadataan dadkana aad hortooda wax kaga dhaarateen inaad saa ii noqonaysiin taa waan idinka digayaa. dad muslimiinaad tihiin is ilaaliya. haddaad u dhaarateen waddankan maxaa u dan ah, midnima u dan ah, xuduudihiisoo la ilaaliyaa u dan ah, baddiisoo la ilaaliyaa u dan ah, hantidiisoo la ilaaliyaa u dan ah. wixii haddaad markaa taana khilaaftaan oo aad soo horkacdaan kuwa hantidaana inay boobaan doonaya ee aanu bixiyay yeeyda cadcad iyo yeeyda madmadow midkay doonaan baa hadaane aanu kala magacaabi maayo way farabadan yihiin. kuwa haddaad ka socotaan ee lacagtan idinku bixinay inta badan oo waddanka u doonaysaan taana been baad ka sheegteen dhaartii oo khatar baad ku jirteen iska jira. waxa waddankii burburinaya oo maanta iska googoosanaysa gacanta u gelinaya ayaad markaa u dhaarateen dhaartii wax iskhilaafaya iyo waddankii aad u dhaarateen saad ka dhigteen. waan ognahay imka Jubbaland oo dhan inay Kenya doonayso waxba saad ka yeeshaan deedinku taasina waa xagga dalka. haddaad u dhaarateen ummaddan waxaan idin xasuusinayaa dadkan maanta aan ku arkayo meediyaha caalamiga ah ee rag iyo dumar bale ee dhalinyar leh oo waayeel leh ee hooyooyin leh ee cid walba leh ee ooyaya ee uu maartaanay ku ooyay inay farbaajo loo soo cesho oo maarta madaxweynaha dib loogu soo cesho u ooyaya. kuwaana haddaad dantooda ka shaqaynaysaan dee kuwii dushooda ku xaraashtay hantidii qaran ee daaraha saraha waaweyn ee ilaa airportka agtiisa ilaa bakaaraha ilaa meel walba iyo gobol wadamada in walba ka buuxiyay kuwa haddaad markale ugu celinaysaan waddankana inay iibiyaan doonaysaanna dee shacbigu taa raalli kama aha. dhalinyarta ooyaysa ee Liibiya laga soo daayay ee arkayay oo qaar Soomaaliland iska ka mid ahaayeen maanta kuwan arkayay ee ilmada iska tirayay kuwaana inaad eegtaan weey. dumarkii qardha iyo boosaaso iyo bari Puntland oo dhan qaylinayay waa inaad la maartay xamar gudaheeda kuwii ka qaylinayay waqtiinay joogaan. marka waxaan ilaahay taana dadweynaha doonistooda in badan bay dumarkaas ku hadaaqayeen haddaad annagana matalaysaan kaasaan doonayna bay idin yiraahdeen. anu maanta nin shaxsan deer leedaanahay waxaan joogaa Boorama waliba galbeedkeeda xuduudda Itoobiya 3 kiiloomitir ay jirtaa. saayidkaan ka hadlaya hadda waa kaan ku qalaaweeyay ee maartaanay dumarkayguna ay ku keenaan yaan raashinka. marka waxa weeye anu cidna wax kama rabo ilaahay u ka baqa oo aayihii ummadiina iyo ubadkiina maarta u baqa oo dhaarta ka ilaaliya. quraanka ninkii akhristo waxaad ogtihiin cidda iskhilaafta qalbigiisa iyo daahirkiisu iskhilaafaan ama muuqaalkiisu inuu naarta halka ugu hoose ka galayo. innal munaafiqiina fi ad-darki al-asfali min an-nar. war waxaan ha eegina dhowr boqol oo kun oo lagu siiyo ama maarta lacag yar lagu taago ama reerkiinii inaad soo maarta wax u doonto eegina ummadan dulahaan ilaaliya. ilaahay ka cabsada. intaasaan idin soo jeedinaya billahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.